Asalaamu calaykum kusoo dhawaaw channelkayga magacayga waa Ifraax channelka daawaneysana waa Ifraax home decor haddii taa markuu ugu horreysay channelkeena soo booqato kusoo dhawaaw haddii hore noola joogtana welcome back maasha Allah maanta waxaan jeclaystay inaan idin la soo wadaago maalintayda Isniinta waxaa qabto maanta waa maalin special inoo tahay maalin waxa waaye wiilkayga daagiska uu bilaabayo ama daycare-ka ama maxaa la dhahaye caruurta xanaanada iskuulka oo ilmaha sanadka loogu talagalay ayay maanta bilaabaya marka waxaan jeclaystay inaan idin la soo wadaago hadda waa quraacanayaa babyga waa soo diyaariyay quraacdiisa asiga waa diyaar wuxuu fiirsanayaa Johnny filimka oo ilmaha caruurta uu fiirsanaya marka aniga caadi ahaan iskuulka waxaa bilaabaynay 2 isbuuc ka hor laakiin waxaan ugu dhacay hergab guriga oo babyga hergabiga dhacay xoogaa yariis marka waxaan ugu dhahay guriga jooga 2 isbuuc soo yacni hergabkan ilmaha kale aan ugu daaranin ama marka jawiga isbedelayo hawada isbedelaysa awgeed ilmaha marka hergab oo ku dhacaan xiliyadan oo kale oo iska caadiya marka hergab waan ugu dhacay guriga marka ma bilaabin daagiska soo hadda isbuucaan bilaabaynay marka wax badan iskuul daagiska ma dhiganayo just waxa waaye in iskuulna heesana 1 saac mise 2 saac bar oo jooga kadibna waalidka imaanaya oo tagawa soo wada marka insha Allah adinka ayaa war idinku daalinin maanta sida noqoto waa arki doontiin insha Allah waxyaabaha ku maqnaa 3 isbuuc oo dhan kadaal dambe videoga dhamaadkiisa ayaa idinkaga sheegi doonaa hadda marka quraacdiisa soo dhameystay waa kana waxa waaye waxa uu soo sameeyay fruit raba inuu qaado waxa uu soo jaray liin strawberry iyo karooto iyo wax yar oo smorgus rooti smash camal ilmaha aad u jecel yahay markaas inuu wax waaye wax aan kale waaye cabitaankiisa ku shubaha cabitaan glasskiisa intaas marka boorsada gelina intaas ku qaada lacalaad bay qabatana waa siinaa ilmaha markay banaanka joogaan ilma kala arkaan bay iska qabato mugtiin marka masha Allah cuntadiisa hore inuu ku qaada daagiska hadii maanay daagiskan aad u fiican yahay waa ka helay macallimiin fiican joogaan kaaliska arag gabar Soomaaliya xataa ka shaqeyso soo ka walwalay walaahi cunugayga macallimadiisa aad ugu soo tagay waa kaya macallimadiisa marka waxaa la yiraahdaa 1 saac kadib soo noqo 1 saac kadib waxay imaaday taagi iyo waxay imaaday gym-ka daagisa maskaxdayda kale karaale noqdo walaahi marka waxay imaaday hadda gym-ka imaaday waxaydiis waxa rabaa kiilooyin badan iska dhimo hadda marka insha Allah firaaqa ahay marka shaqeynaynin waxa waaye inaan gym-kiska imaada babyga waxay jira daagis soo marka waxa waaye waxay dhigtaa meeshaan lagu gym gareena waxa la iska ridaa kiilooyinka insha Allah marka gym-ka waxa waaye wuxuu leeyahay dad had saartiin dad joogaan soo aanina dad hortiis ma ugu gym kari waxa dhahay qolka weynka ay maana qol waxa waaye oo masha Allah wax kasta yaalaan oo lagu gym karo bir ma yaalaan laakiin geedaha gacanta lagu qaaday waxa iska yaalaan adii saarkiisa ma hino mar waxaan u leeyahay alladeed kulaala jiro maanta soo qabow way dhigaa meeshan marka waa kana asxaabay meeshan ku soo jiimeena xogaa yaris kadib isku soo laabanayna hadda waxa uu sii socdaa daagiska babyga doonanaya marka daawasho waxan asxaabtayda qaaliga hadda waxa sameynaya qadada wiilkayga iyo casho yani qadada markasta ugu dhiga intaana maanta arabana uu sameeyo qudaaraadka waa aad u fiican ilmaha marka inta waxa ku heesanaa barbarooni broccoli wixii Soomaali lagu dhahay marka barbarooni iyo digir iyo waxa isku jiraan waaye iyo galey meesha baradho intana waxa ku heesanaa karooto halaha ka kooban tahay qudaaraadka oo yani ground soccer waaye filinjeerka ka soo bixi mar hore hadda ma arkaysa maano barafka uu ka dhacay
soo hadda waa diyaar waaye intaa kariyaa labis u dhiman. saliidaan isticmaali doonaa waxa waaye olive oil. inta waxaa ku haysanaa wax yar oo shiklinka waxa waaye diyaarsan waaye laakiin wax yaris oo lasoo diyaariyay labis wax wixiisa dhan wuu wataa bis inaa wax yaris hafsid bis u baahan yahay marka asigaa isticmaali doonaa. meeshaan waxaa ku haysanaa wax yaris bariis maaha laakiin bariis camal waaye. ilmahan aad u nafaqo u leeyahay marka sida bariiska camal loo kariyaa hadda biyaha marka la soo dhigo xogaa yaris waa soo dhaqay. marka qudaarta markaa kariyo ku dari doonaa wax badan ma qaadana asiga 5 daqiiqo kadib waa karsama because aad u yar yahay waa arkaysi mahayno wax badan ma qaadanayo dabka. marka sawirka qaata haddaa rabtiin waa kaya magaciisa dukaanada carabta kasoo gaday meelaha kasta waa ka heli doontiin malena. marka insha Allah hadda noo bilaabanaysa digsiga dabka soo saara hal mar unbaa wax dhan iskugu dardari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka saabteeda waa kana karaal noqdo codka hadda waa saaraa because guriga booqbooqa ka jira martiina la joogtay. so marka intaan igaaga sii wadaa intii hadda ay soo sharaxay baa hadda ku soo daray waxaa ku soo darsaday hadda koob buuxo oo biyo waxaa kaloo ku darayaa haaf yariis oo maraq digaag iyo xawaaji dhuudhuub paprika iyo toon shiidan intaas iskugu daraa insha Allah waa arki doontiin. cunugeyga hadda wuxuu gaaray sanad marabi cuntada inaa yacni u shiido cuntada marka kariyo mararka qaarkood waxaa sameeyaa in yacni kali u kala sameeyo waxaan dhahaa saxan hawsha waa dhahaa kaale adig kaba baxso midka rabtid. mararka qaarkoodna waa kana sidan hadda ay noqotay camal iskugu shiishiido waxaan gees kaga dhigaa baasto ama bariis ama suugo camal ay u tahay sideeda ahaan xataa waa u sii kartaa wax dhibaato ma lahan. marka nafaqana way u tahay adina ma ku dhibayso in yacni markasta cunto karkarisid. hadda cuntadan hadda karinayo arkaysiin waxay qaadi kartaa 2 maalin ama 3 maalin inta yacni cuni kariyo tabriibu cunigaaga ku xiran tahay. ilmahani waxa qudaarta aad ugu fiican tahay actually karaal noqdo codkii aad waxba u yahay dhib ma lahan cuntada hadda mashiido waysa aragteen just qaandadu baa ku jajabinaya si cuntada marabinaysa dhan ayadana u riiqmato u shiidmato diyaar waaye mar dhow ka dejin doonaa biyo badan marabinay ugu daro because waxaa rabaa in yacni biyo noqoto marabi waxaad ku soo dari doonaa whip cream ku soo dari doonaa ama geete faanteen insha Allah. marka asxaabteeda waa kana arkaysa mayno wax yaris ku soo darsaday oo mood geete caanaha cuntada lagu darsado waaye. marka waa kana insha Allah cuntadan waxaa sii kartaan ilmaha ilaa 6 bilood ka gaarayaan ilaa 12 bilood ama ka badan masha Allah ilmahan waxay ka heli doonaan nafaqo badan waa soo tijaabay walaa wiilkayga fabrikiisa waa cuntadan waxaa la siiyaa yacni in bariis loogu daro ama pasta loogu daro ama sideeda loo siiyo. so cunto healthy waaye nafaqo leh masha Allah wixii proteinkeedii inkasta wax dhan inay wadato waaye soo tijaabiye insha Allah hubina adinkana ka heshiin. marka waa ku soo laaban qodobkeena marka cuntada waa soo siiyay marka wiilasheeda soo qaatay
intii hartay marka waxaa dhahay maalin kale la baahan karaa. So digsi weelasheeda ku shubnaa waxaan gashanaa filinjeerka hoose marka maasha Allah saabay waxaa dhiirigelinaa in videogan aad ka hesheen aad ka bogateen inta ayaantana idinkaga maqnaayna waxaan ku maqnaay hadda rabaa inaan ii sheego labadan beri aad u xanuunsaday wiilkay xanuunsaday anigu waa xanuunsaday taas yacni kaliya uma soo maqnaynin waxaa bilaabay jaamacad marka taas awgeedna waa ku maqnaay jaamacadeeda iyo waxaan barto iyo waxyaabahaas kalena maalin kale ayaa idinla soo wadaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka intii danaynayso intii su'aal qabto hay soo weydiiso insha Allah. Haddana waa soo laabtay videoyaasheen sidii hore ayay ku soo laaban doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo.